hadda maanta maalintii dhaweyd waxay ahayd in waxyaabo soo jeedino in laga wada hadlaa waxay u egtahay maanta markaan fiiriyay sidoo wax u socdo in moogta aad uga faa'iideysanay arintii meesha aan isku imanay sida u dhacaysay moogta baralisku waxa soo jeedin lahaa maanta waa gabagabo hadal badan ma jireen aan noqono dad aynan masiibooyinku hagin inaku iyadaan hagno haddii had iyo jeer aan ka daba tagno kolba markii wax dhaco aan ka daba tagno meel ku gaari mayno marka waxaan soo jeedin lahaa arrimaha isla soo qaadnay si serious ah istadigeeda inakoon u kala harin aan galno aan ka soo saarno wax productive haddii meel aan isku imanno 3-4 cisho meel aan joogno oo wax midho dhalaana soo saarin dee waa iska hadalno adduunyada waxaa isu dhaaftay seriousnesska marka waxa weeyaan waxaan ka soo halka ka salaamaya dee in badan baa layidhi annaka maalintii madaxweynuhu waxay yidhi 50% baan idiyaan thank you ilaahay buu yidhi annagu 100% maalintii kii soo taagna 100% dee haddii aad ku wadiin oo moogta aad wax soo saartiin wax midho dhalan 100% kaan idinku wadaynaa haddii kale dee quarter ama 25% waxaan idiyaan ku noqon doontiin marka waxaan ilaahay awguuriyo shaqo fiican baad qabateen cid ka soo qayb shaqo fiican bay qabatay inta fadhida nafaateedu waxay kooriskarisay shirku inuu socdo haddii banaanan lahayn taasoo ku dhani dee shirka maxaa ayaa loo rabi lahaa message-kan in la gaarsiiyo dad baa la rabay amba dibadda naga joogaan amba gudaha joogaan message-kana moogtahay dulqaadka aad u dulqaateen in la idin soo gaarsiiyo horta idinkuna aad ku mahadsantihiin aad iyo aad baan dhammaantiin mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu